kulanti wacna wanaagsan daawadayaal halkan nagala socotaan waa Shabeelle Channel iyo Caasimada Channel oo aynu ku soo qaadano wararkii ugu dambeeyay ee caalamka fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso ha hilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 9 bisha tobnaad ee Oktoobar sanadkan 2024 waxaynu soo qaadan doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo markaas galay maalinkii 957 waxaan ku horeynayaa laba qof oo maanta la xaqiijiyay inay ku dhinteen halka in ka badan 30 kalena ay markaas ku dhaawacmeen weeraro xoog lahaa oo Ruushka ay ka geysteen caasimadda Kharkiv ee waqooyi bari ee waddankaasi Ukraine gobanaha gobolkaasi oo leh Syobov ayaa maanta sheegay in 4 gantaal oo markaasi ah gantaalada la hago ee guided bombska in ciidamada Ruushka ay ku duqeeyeen caasimadan labaad ee ugu weyn ee waddankaasi Ukraine halkaasina qasaarahan oo markaasi ka dhashay iyo waliba inay jiraan dhismayaal badan oo halkaasi ku burburay oo gantaaladan lala eegtay hal qof ayaa maanta la xaqiijiyay inuu ku dhintay halka 5 kalena ay ku dhaawacmeen weeraro ciidamada Ruushka ay ka geysteen tuulada lagu magacaabo Antonivka gobolka Kherson ee koonfurta waddankaasi Ukraine sida gobanaha gobolkaasi Alexander Prokodin oo warbaahinta markaasi u xaqiijiyay dhanka kale ciidamada cirka ee waddankaasi Ukraine ayaa maanta sheegay in 18 ka mid ah 19 diyaaradood ee nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska oo Ruushka ay ku weerareen gobolka Odessa ee koonfurta waddankaasi Ukraine in hawada ay markaasi ku burburiyeen iyadana hal diyaarad oo drone ah ay kaliya markaasi ku dhacday qaybo ka mid ah gobolkaasi gobanaha gobolkan Odessa Oleg Kipa ayaa waxa uu markaasi sheegay in diyaaradan drone-ka ah ay markaasi ku dhacday deegaanka lagu magacaabo Chernomorsk ee ka tirsan gobolkan Odessa halkaasina dab xooggan uu markaasi ka kacay balse aanu jirin wax khasaare ah oo markaasi ka dhashay weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa haatan waxa la tilmaamayaa in ay qarka u saaran yihiin in ay qabsadaan caasimadda Toretsk ee bariga dalkaasi Ukraine Anastasia Bovnikova oo u hadlay ciidamada militariga ee Ukraine ee ka dagaalamaya gobolka Luhansk ayaa maanta sheegay in dagaalkii ugu adkaa haatan uu markaasi ka socdo xaafadaha qaar ee magaalada Toretsk ayna dadaal badan ku bixinayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen in Ruushka ay gacanta ku dhigaan magaaladaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa maanta sheegay in ciidamada Moscow ay gacanta ku dhigeen deegaanka lagu magacaabo Zolotan Neva iyo deegaan kale oo lagu magacaabo Zoryane Parshe oo ah laba deegaan oo ka tirsan gobolka Donetsk ee bariga dalkaasi Ukraine halkaasi oo boqolaal qof oo halkaasi oo deegaanadan ku noolaana la sheegay in ay ka qaxeen wasaaraddan gaashaandhigga ee dawladda Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in qalabkooda difaaca hawada ay ku burburiyeen 16 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska ee warxaha qarxa markaasi siday oo Ukraine ay doonayeen in ay ku weeraraan qaybo badan oo ka mid ah gobolada ee ku dhow xuduudda labada waddan 14 ka mid ah diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ee droneska ay markaasi sheegeen in ay ku burburiyeen gobolka Belgorod-ka ee xuduudda labada dal ay markaasi wadaagaan waxaana dawladda Ruushka ay markaasi ka gaabsatay in uu jira khasaare ka dhashay burburka diyaaradahaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Kuuriyada Waqooyi Kim Yong-hyun ayaa maanta sheegay in ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee sida khaaska u tababaran in ay markaasi ka dagaalamayaan qaybo badan oo ka mid ah waddankaasi Ukraine ayna markaasi la dagaalamayaan ciidamada qalabka sida ee waddankaasi wasiirkan ayaa markaasi sheegay in ciidamo badan oo ka tirsan militariga Kuuriyada Waqooyi in bilooyinkii aynu soo dhaafnay ay markaasi ku sii qulqulayeen qaybo badan oo ka mid ah gobolada haatan ciidamada Ruushka ay gacanta ku hayaan iyo bariga dalkaasi Ukraine gaar ahaan gobolka Donetsk oo dagaalka ugu adag markaasi laga soo tabinayo tan ayaa ku soo aadaysa xilli Oktoobar 3 markaasi la xaqiijiyay 3 askari oo ka tirsan militariga North Korea in lagu dilay weerar gantaal loo adeegsaday oo ciidamada Ukraine ay halkaasi ka fuliyeen dhanka kale ra'iisul wasaaraha waddankaasi Hungary Viktor Orban oo ka mid ah madaxda EU-da ka tirsan ee saaxiibka la ah Ruushka ayaa maanta sheegay in Ukraine ay adag tahay in guulo waaweyn ay ka soo hoyiyaan dagaalka haatan ay markaasi kula jiraan ciidamada Ruushka
Viktor Orban ayaa ka dalbaday wadamada maanta taageersan Ukraine oo EU-da iyo Mareykanka ay ugu horeeyaan in ay la yimaadaan istaraatiijiyad cusub, isagoona sheegay in qaabka haatan ay u dagaalamayaan Ukraine iyo sida dagaalkan loogu taageerayo in wax faa'iido ah aysan soo kordhinaynin, isla markaana ay adag tahay in Ruushka laga guuleysto. dhanka kale madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta kulan la yeeshay taliyayaasha ugu sare ee ciidamada militariga ee waddankaasi Ukraine, isagoona kala hadlay dagaalka haatan ka socda qaybo badan oo ka mid ah waddankan iyo sidii ay u sii joogteen lahaayeen dagaalkan iyo sidii ay uga hortagi lahaayeen in Ruushka ay sii qabsadaan deegaano kale oo badan. Zelensky ayaa sheegay in haatan ay ka shaqaynayaan sidii loo sii ballaarin lahaa ama loo sii kordhin lahaa hubka lagu soo saarayo gudaha waddankaasi Ukraine, isagoona sidoo kale soo hadal qaaday in Ukraine ay u baahan tahay in ay howlgeliso gantaalada ridada dheer ee long range-ka ah iyo weliba in ay ka shaqeeyaan sidii guulo waaweyn ay uga gaari lahaayeen dagaalada haatan ka socda qaybo badan oo ka mid ah waddankaasi Ukraine. xogeyaha guud ee ururka gaashaanbuurta NATO Mark Rutte ayaa maanta waxa uu markaasi ka digay in bilooyinka nagu soo aadan ay suurtagal tahay in weeraradii ugu adkaa uguna xooganaa in Ruushka ay ku qaadaan qaybo badan oo ka mid ah waddankaasi Ukraine, isagoona sheegay in weeraradan ay noqon doonaan kuwii ugu xooganaa oo Ruushka ay qaadeen tan iyo 2022. waxa uu ka dalbaday wadamada saaxiibka la ah ee haatan taageeraya Kiev in ay markaasi ka shaqeeyaan sidii hub badan oo ayu nooca loo soo gaarsiin lahaa dowladda Ukraine. waxaa sidoo kale Mark Rutte uu soo hadal qaaday in NATO ay qasab ku tahay in ay taageeraan ciidamada qalabka sida ee waddankaasi Ukraine, ayna ku taageeraan sidii guulo waaweyn ay dagaalkan isaga markaasi uga soo hoyin lahaayeen. dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa maanta 3 gantaal oo nooca UAV-da 2050 ee markaasi gantaalada la hago waxa ay la beegsadeen deegaanka lagu magacaabo Kostianivka ee ka tirsan gobolka Donetsk, halkaasi oo dhismayaal badan ay ku burburiyeen. dab xoogan ayaana la soo tabinayaa in uu ka qarxay ama uu ka kacay qaybo badan oo ka mid ah dhismayaashan gantaaladan lagu burburiyey. kooxaha gurmadka degdega ee waddankaasi Ukraine ayaa sheegay in dab xoogan uu ka kacay dhisme 9 daba ka kooban, ayna halkaasi ka soo badbaadiyeen hal qof oo goobtaasi oo weerarkan ku dhaawacmay, iyo weliba in ay ku guuleysteen in 7 qof oo kalena ay ka soo saaraan dhismo ku dhow halkaasi oo sidoo kale gantaaladan ay Ruushka maanta la eegteen. ciidamadan ayaa sidoo kale sheegay in nin 73 sano jir ah in burburka dhismayaashan hoostooda ay ka soo saareen, ayna ku wareejiyeen saraakiisha caafimaadka, kaasi oo ay sheegeen in haatan xaaladiisa caafimaad lala tacaalayo. dabkii halkaasi ka kacay ayaa la sheegay sidoo kale in haweeney ay ku dhimatay halka 6 kalena ay markaasi ku dhaawacmeen. ilaa iyo xilligan wararka waxa ay markaasi tilmaamayaan in gantaaladan halista ah ee 3 ah ee la hago ee maanta Ruushka ay ku garaaceen qaybo badan oo ka mid ah magaalada Kostianivka ee gobolka Donetsk ee bariga dalkaasi Ukraine, in ay burburiyeen oo ay khasaaro u geysteen ilaa 30 dhismo oo halkaasi ku yaalay, oo 17 ka mid ah la sheegay in ay yihiin dhismayaal dad shacab ah ay markaasi degnaayeen, in gawaari badan ay halkaasi ku gubteen, iyo sidoo kale in halkaasi ay ku burbureen kaalmaha shidaalka iyo gaaska ee ku yaalay halkaasi, iyo 3 xarumood oo markaasi xarumo waxbarasho oo ku yaalay magaaladan Kostianivka oo ciidamada Ruushka ay markaasi duqeymaha iyo weerarada ay maanta la beegsadeen. dhanka kale dacwad soogaha guud kamada dambiyada caalamiga ee ICC-da Karim Khan ayaa maanta sheegay in ay baarayaan dilalka la sheegayaba in ciidamada Ruushka ay u geysteen shacabka reer Ukraine iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee waddanka Ukraine ee gacanta u galay bilooyinkii aynu soo dhaafnay kadib dagaaladii xooganaa oo ay ku qabsadeen deegaano, degmooyin iyo magaalooyin badan oo markaasi ku yaala waddankaasi Ukraine. Karim Khan oo suxufiyiinta reer Ukraine kula hadlay magaalada Hague ee dalkaasi Netherlands ayaa maanta sheegay in ay sidoo kale baarayaan dambiyadaasi dagaal iyo in ay baarayaan in caruur badan oo reer Ukraine ah in ciidamada Ruushka ay markaasi u qaadeen
qaybo badan oo ka mid ah gobolada ee waddankaasi Ukraine iyo in ay baarayaan weeraradan joogtada ah oo Ruushka ay la beegsanayaan xarumaha ay dadweynuhu ku leeyihiin halkaasi. Vladimir Putin oo maxkamadda ICC-da ay horey ugu jirtay warqadda soo qabashada ee arrest warrant-ka ayaa waxa isagana uu markaasi dawladdiisa ka difaacay eedahan ay wajahayso isagoona sheegay in ciidamada militariga ee waddankaasi Ruushka aysan ku lugta lahayn dambiyadan iyaga ah ee markaasi lagu soo eedeynayo. Waataa intaasi ayaan uga gudbayaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo aad kala socoteen Shabeelle Channel iyo Caasimada Channel. Fadlan haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad nagu soo biirayso ha ilmaamin in subscribe-ka aad nagu taageertid si muuqaallo caynkan oo aad u xiiso badan aad halkan uga bogatid. Tan ismaqalkeena xigana waxaan idin leeyahay sidaas ismaqal dambe oo aad u xiiso badan.